بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين كسر هذا كورس عصب أو إنه كجشة كين إنه كمبيوتر نتورك marka waxaan uga hadli doonaa si asaasiya waayo waxaan leenahay fundamental of computer network waxaan uga sheekeynaynaa si qof kasta oo IT background leh iyo kii aan lahaynba inuu iskula jaan qaadi karno waxaan u soo koobayaa terminology-yada sida ugu suuragalsan diagram-yo casharada u badan doonaan si ay qof kasta uu adduunka wax uga barto siduu network u shaqeeyo computer network guud ahaan wuu ballaaran yahay oo internetka iyo wixii oo dhan ba soo gelaya laakiin qof kasta maanta network waa ka mid maadaama uu mobile kaga xidhan yahay ama computer kaga xidhan yahay ama in other network device kale uu ku xidhan yahay waa internetka waa ka mid marka adduunka wuxuu socdaa wax loo yaqaan IoT internet of the things shay walba inuu internetka ku xidhmayo marka maadaama aynu si basic uga hadlayno 6 chapter ayaynu istaabsiin doonaa insha Allah chapterka koobaad waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano fundamental of computer network computer network wuxuu yahay topology-yada star topology ring topology bus topology waxyaabahaas si basic uga hadli doonaa componentska magacyadooda aynu baran doonaa router switch hub chapterka saddexaad baynu kaga sheekeyn doonaa kaas chapterka labaad waxaan ku baran doonaa OSI model waxa loo yaqaano OSI modelka 7 layer noqon doona 7 layer ee kala duwan layer kasta shaqadiisa ayaynu si faahfaahsan uga hadli doonaa cutubka saddexaad waa identify network devices hub switch firewall maxaa loo yaqaanaa sidoo kale router waxyaabahaas aynu kaga sheekeyn doonaa waa cutubka aynu ku faahfaahin doono chapterka koobaad waxaynu ku dhigan doonaa qaybo ka mid ah chapterka afraad waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano working IP addressing working IP addressing wuxuu yahay ama internet protocol wuxuu yahay waxaynu maqli doonaa wax loo yaqaano public IP private IP subnetting binary waxyaabahaas maqli doonaa marka chapterka xisaabaad yar baynu kaga shaqeyn doonaa chapterka shanaad waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano wide area network wide area network waxa loo yaqaanaa waa isku xidhka adduunka local area network chapterka koowaad ku maqli doono isagu wuxuu ka sheekeynayaa guud juqraafi ahaan in kooban hadduu ballaadhayo adduunku wax continent level uu yahay waxa loo yaqaanaa wide area network wide area network in baran doonaa satellite bin wax ka sheegi doonaa frame relay wax la yiraahdo wax ka sheegi doonaa protocol kala duwan baynu maqli doonaa point to point baynu maqli doonaa marka chapterkaasi runtii waa chapter aad u muhiim ah chapterka ugu dambeeya dhinaca amaanka internetka inuu wax yar ka taabanayna internet security baa loo yaqaanaa chapterka isaga waa chapter isaga laftiisa aad u ballaaran laakiin waxyaabo fara badan oo security-ga la xiriirin kaga hadli doono aan ka hadli doonaa next generation firewall wax la yiraahdo network security-giska iyo qaybihiisa waxaynu kaga baran waxa loo yaqaan waxaynu baran doonaa hadii la CIA baynu baran doonaa tii Mareykanka maaha laakiin waa terminology la isticmaalo authentication baynu maqli doonaa encryption baynu maqli doonaa decryption baynu maqli doonaa runtii waa chapter aad u muhiim ah